اعتراف إلهي خير هينو قدم إنه خير كتيرو إن كلا الله أعلم إلههم بأوك لكن وحن لي إلهي ورتا هينو رميو خيرنا إلهي هينو قدم وانقرت ومديننا وحن ليه war dawlad baa inoo dhisan dawladdaas iyada inaga mas-uula aan u ducayno cadowgaas weligii inaga hadhi maayo anigu sidaan qabo nimanka muqdisho jooga nimankaa muqdisho jooga weligood inaga hadhi maayaan dhiiggaa gooja cadde iyo maxay ahayd laascaanood ku daatay ee 50,000 ee qof dhiigooda lagu shubay Hargeysa weligood way ina daba soconayaan anigu sidaan qabo dad badan oo kalena ay qabaan hadhi maayaan ilaa ay ku noqono iyaga oo ay mar labaad dub inoo xukumaan oo dub aynu u hoos galno weligood joogsan maayaan doctore markii Soomaaliya ictiraafka heshay cadow badan oo meel walba ka qayliya ayaa jira kuwa Kenya jooga uu ka mid yahay umulok isagoo inuu ognahay Soomaaliya iyo xarada xalana iyo dhibta ka socota iyo ciidamada kala duwan iyo waxyaalaha meesha ka dhaca iyo gaalada joogta xamar laakiin xulka Soomaaliya Israa'iil la sameysay isagoo cilmi diimeed u haynin maalin walba si uu qaldan uga hadlay doctore waxaad ka mid dadka aqoonyahanka Soomaaliland isla markaana gaalada in badan la soo shaqeeyay waliba Mareykan iyo Sheekh Umar maxaad ku qancinaysaa marka shareecadu meel ay ku diidayso in yahuud xiriir lala yeesho haba yaraate ma taalo calankanina wuxuu ka mid yahay xiriirka lala yeelanayo ama laa ilaaha illa allah wato ama yuu wadanne waa xiriir lala yeelanayo un nimankaas oo safaarad baa laga furtay iyaguna safaarad bay halkan ka furteen meel ay diinta islaamku ku diidan tahay haba yaraatee taa ma jirto tawxiidka islaamka iyo tirarka iimaanka iyo tolmonow rasuulkiyo xaqaanu ku taaganay islaamta khiyaanunay dadka yagu ma gelin furqaanna kamaanu tegin aqoonsiga taabagalay talaabib hadduu ka yimi iyo tawxiidka maxay isku xidhay oo tawxiidka maxay isku xidhay dadka yagu ma gelin furqaanna kamaanu tegin aqoonsiga taabagalay talaabib hadduu ka yimi iyo tawxiidka bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada waraysi aad iyo aad u xiiso badan oo aanu la yeelan doono doctor cabdulqaadir khayre cilmi oo ah isagu nin doctora oo aqoon-yahana oo reer Somaliland 34 sano wuxuu ku noolaa dalkaasi Mareykanka 23 sano wuxuu imaam ka ahaa masaajid ku yaala dalka Mareykanka magaaladiisa New York sidoo kale 30 sano dacwadda diinta islaamka ayuu ka waday jeelasha waaweyn ee Mareykanka isagoo markaasi shahaadada u qabanayay ama nimanka ku xiran ee jeelasha ku jira ee ama criminal kiiska ama kuwa gaaladaba ah doctorku uu aad iyo aad xog uga hayaa ama uu maanta aanu iftiimin doonaa ictiraafka Somaliland ay ka heshay dalka Israa'iil iyo faa'iidooyinka ku duugan iyo waxa shacbiga Somaliland looga baahan sidoo kale wuxuu inoo faahfaahin doonaa arrimaha kale ee baraha bulshada aadka u haysta ay ka mid yihiin Somaliland sidaasay noqotay iyo gaalo xiriir la sameysay inaga faa'iidadu inoogu jirta marka hore soo dhawow doctor cabdulqaadir khayre cilmi waa dhow ma sha Allah waa mahadsantahay waxaanu ku faraxsanahay maanta inaanu hoyga aad ka degantahay magaalada Hargeysa kula yeelano waraysi aad u qiimo badan oo ku saabsan
اعترافك Somaliland ee dalka Israa'iil iyo faa'iidooyinka uu leeyahay. بسم الله الرحمن الرحيم horta waa mahadsantihiin bulshada dhageysan doontana waan salaamayaa waxaan leeyahay weli ciidii baynu ku jirnaa ciid mubaarak ciid mubaarak ciid baynu ku jirnaa waxaad moodaa runtii ictiraafkii aynu helay ee aynu ka helay Israa'iil in uu ina geliyey xaalad ah laba daran kala dooro way labada darani waxay yihiin yuhuud baa adduunka wixii jiray bani aadam iyo wadamo oo dhan yuhuud baa ina ictiraaftay way oo aynu garanayno waxay yihiin way ilaahay inoo sheegay inay yihiin ashadda annaasi cadaawatan liladiina aamanuu alyahuud waaladiina ashrakuu cadaawadda ugu weyn waxa u haya dadka mu'miniinta ah wuxuu yidhi alla yidhi subxaanahu wa tacaala oo og oo cid walba uga cilmi badan waa yuhuudda iyo mushrikiinta markaa yuhuuddii ay ka mid ahayd mushrikiintuna de way la socdaan ayaa noqotay tii ictiraafka ugu horreeyey ina siisay ictiraafkuna waa shay daruuri ah oo bani aadamku aanu ka maarmin waayo noloshii yowmiga ahayd ayaa inagaga xidhan marka waa shay aad inoogu muhiim ah balse laba daran kala dooro weeyo halkuu ilaahay ka soo saaray waa yuhuuddii inoogu colaada badnayd haddaynu mu'miniinta nahay yuhuuddaasu laakiin maanta waxa weeye dagaal kuguma hayso cunaqabatayn kuguma hayso agajuglayn kuguma hayso dhulkaagii kaamay qixin nabaddaadii waad iska haysataa weliba waxay ku leedahay waxbaanu ku taraynaa wax ka runa allahu aclam laakiin afka waxay ka leeyihiin waxbaanu idin taraynaa laba daran kala dooro oo dhinaca kale waxay noo taagan cadow kale isna oo 46 sannadood cunahay nagaga taagnaa cadow maalintii aynu ingiriiska ka xorownay aan nidhi waa walaalaheen weeye aan iskaashanno oo ma garanaysaa aynu ku biirnay oo calankii aynu ingiriiska ka qaadannay ula tagnay laakiin maalintaa laga bilaabo khiyaamo aflagaado budhcadnimo maxay ahayd dil yas lagu yasayo uun aynu kala koronnay ilaa ay gaadhay in hargeysa maalin maalmaha ka mid ah 50,000 oo qof lagu dilo siday BBC-du tiri 50,000 oo qof diyaarado lasoo kiraystay oo calooshooda u shaqaystayaasha dadka yaryaree maanta nooli waxba garan maayaane laakiin dadka waaweyni way la garanayaan BBC-du marka berigaa waxay sheegtay 50,000 oo qof in maalin keliya lagu dilay magaalada hargeysa marka cadowgaasu waxa weeye cadowgii ina qixiyey ee injirtu inagu gashay dulcad iyo dhulka ka mid ah ee haddii alla yidhaahdo maxay ahayd dhibaatadu inoo geystay taariikhdu ay qortay cadowgaasu weli muu hadhin markaas 2 sannadood ka hor laascaanood buu haddana inagu diray oo uu yidhi dagaalama dhul baa laydinka qaaday dhulkiina goosta oo dabeetana dhiig muslim daadinaya ayuu cadowgaasu keenay waa cadowgii aynu calankeenna ula tagnay oo walaalnimada ula tagnay wuxuu keenay maanta 2 sannadood ka horna in dhiig muslim kale uu daadiyo oo dhalinyartoo dhammi way la fahmaysaa dee ilan 2 sannadood ka hor way noolaayeen laascaanood iyo gooja cadde wixii ka socday cid waliba way fahmaysaa qof muslin ahoo adhigiisii foofsaday intoo adhigii laga dhacay la dilay reero dhan la gubay ramadaan anigu waan garanayaa 2 ramadaan ka hor jimcaha iyadoo la tukanayo lasoo ataagay dadkii salaada ku jiray maxay ahayd ummad dhammi cadowgaasi intay mashriq iyo maqrib debed iyo gudaba lacag soo ururiyey
oo ku faaneen 1,000,000.8 baanu soo ururino aanu dagaalka ceer laascaanood ugu deeqnay afkooda ka qirteen da waa laba cadow weeye ogow waa cadowgaa yuhuudda iyo cadowga aan sifaynayo weeye maanta cadowgaa aan sifaynaya wuxuu taagan yahay oo kale ummad bay aynu nahay ilaahay ku dhaqay Somaliland bari iyo galbeed ummad ilaahay ku dhaqay ilaahay baa halkaa inoo xukumay inaynu halkaa ku dhalanno oo ku korno ilaahay baa amray khayraadka ku jirana innagaa leh ila waynu ku dhalanay abnika Uzbekistan macdanta ku jirta ee odhan maysid anigaa leh dhulkeenna maanta wuu buuxaayo waa la ogyahay macdanta lithiumka la yiraahdo halka Hargeysa agteeda ka buuxda lithiumkuna waa adduunyadu meesha ay u socoto oo electric cars waa laga guurayaa petrolkiyo xaggaas ay u socoto bahal coltan la yiraahdo ama niobium ayaa ka buuxa buuraha gacan libaax iyo wixii bariga ka xiga oo wax macdan aan mobilkaas shaqaynayn la'aanteed laakiin buuraheenaas ka buuxa dahabku bari iyo galbeed buu ka buuxa badeena casi waa wada petrol cadowgaas maanta wuxuu gaaray dhulka ilaahay nagu abuuray iyo khayraadka uu inoo geliyay inagu leenahay inuu Turki ka iibiyo iyo wadamo kale oo u saxeexo yiraahdo adigaa leh cadaawadu halkaasay ka gaadhay cadowgaas weligii naga hari maayo anigu sidaan qabo nimanka Muqdisho jooga weligood inaga hari maayaan dhiiga gooja cadde iyo maxay ahayd laascaanood ku daatay ee kontonka kun ee qof dhiigooda lagu shubay Hargeysa weligood wayna daba soconayaan anigu sidaan qabo dad badan oo kalena ay qabaan hari maayaan ilaa ay ku noqono iyaga oo ay mar labaad dub inoo xukumaan oo dub aynu u hoos galno weligood joogsan maayaan rasuulka rasuulka alle sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo sheegay qiimaha uu leeyahay dhiiga qofka muslimka ee laa ilaaha illa allah yiraahdo Aba Dharr al-Ghafari radiyallahu anhu ardaa waxa laga soo wariyay kama fi sahih al-Bukhari inuu rasuulka alle yiri sallallahu alayhi wasallam والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا إلها نفتيد أجعنتي سكوتشرتان كل أرتي قف كلية أو مسلم مؤمن ونفتي سلقويه إلهي وحي كجوين تاعي الدنيا دا أردن الله ترتره نفتي كلية هيدا مؤمن كهيد الدنيا دا أردن الله ترتره إلهي حقي سوحك قيمة بدن نفتا مؤمن كي لا إله إلا الله تري عدو قاسو إلا إيا مالنتين كدر سني وصوص عداون ميل وكاقي ما دبا وحوية دباطو يوم بينو كدح الله مركا وحي يسويدينينا أما دادتك عن ليه بالسويدية ورلبدا عدو كا إلهي نوتي المامي إيه نوقي حنينو عدو يهي إيه أي نسكا أقنحي haddii aynu isku garan weeyno aynu odhanayo waralkaaga ka bax iyo cadowga intuu kolba yimaado uun dhiig muslin oo dhiig kale muslin daadinaya oo naarta u jiidaya labada cadow keebaynu dooranaynaa dadkan anigu u dhiibaya jawaabta mana filayo in aynu sidaynu ku qeexi doonno ha dhowto in ay labada cadow siman yihiin waa laba cadaawadood oo midna wax yar tahay عداود iyo mid aan weligeed joogsanin ilaa qiyaamaha oo dhiig muslimin la daadinayo dhiiga aynu qiimihiisa sheegnay inay adduunka oo dhan in la tirtiro ilaahay kaga weyn tahay naf qof mu'min oo laa ilaaha illa allah yiri way doctor Abdulqaadir safarada Somaliland ay ka furatay Quds iyo calanka tawxiidka leh لا إله إلا الله محمد رسول الله كتالله قدس لقي إسرائيل لقي فايدين تلك أيولي إنولي سومالينا وايه علنك لا إله إلا الله توحيدك له قدس لقتها جي فايدين تلك أنا وحرن لها
dhibaatada ku jirtaa maxay tahay ilan dadkii waxay leeyihiin waxaa layna leeyahay yuhuud bay geysteen calankii laa ilaaha ila allah bay ka taageen maxay ahayd qudus waxaan u bedeli lahaa su-aasha horta faa'iidooda way noo sheegeen oo waxay dhahan waanu idin ictiraafaynaa dhaqaalena waanu idinla qaybsanaynaa oo dee ama batroolkiina aanu iibsanno ama macdantiina aanu iibsanne dhaqaalena dee waynu wada wadaagaynaa waxa labada aan u bedeli lahaa maxay tahay dhibaatada ku jirta calankii in laga taago qudus iyo yuhuud dhexdeed diinteenna islaamku iyo dee laa ilaaha ila allah iyo calanka tawxiid kaleba waxa xukumo uun sharciga ilaahay su-aashu waxa weeye shareecada islaamku maxay ka qabtaa in calankaa halkaa laga taago maxay ka qabtaa shareecada islaamku in yuhuud xidhiidh lala yeeshana maxay ka qabtaa shareecada islaamku waa midee horta calanku ama in la yeesho xidhiidh yuhuud iyo israa'iil diinteenna islaamka meel ay kaga soo aroortay inaan xidhiidh lala yeelan karin ma jirto balse cagsiga ama oppositka haddaad eegto rasuulkeennii calayhi afdal asalaatu wassalaam ee khayru khalqi illaah ahaa ee yuhuudi hadday cidi necab tahay ka ugu necab ahaa xidhiidh wuu la yeeshay taariikhdu way qoraysaa ilaa xad ay gaadhay in maalintuu dhintay gaashaankiisi uu ka rahmanaa nin yahuudi ah diinta islaamku waxay gaadhay inaynu wax ka iibsan karno wax ka iibin karno xidhiidh baayaca mushtari ilaa xad ay gaadhay haddii ninku uu waayo gabadh muslim uu guursado inuu gabadh yahuudiyada ama ahlulkitaab inuu guursado macni mar hadday guur gaadhana adduunyada dee meesha wax ka dambeeyaa ma jiraan marka shareecadu meel ay ku diideyso in yuhuud xidhiidh lala yeesho haba yaraatee ma taallo calankanina wuxuu ka mid yihiin xidhiidhkaa lala yeelanayo ama laa ilaaha ila allah ha wato ama yuu wadanne waa xidhiidh lala yeelanayo un nimankaas oo safaarad baa laga furtay iyaguna safaarad bay halkan ka furteen meel ay diinta islaamku ku diidan tahay haba yaraatee taa ma jirto haddii ay wanaagi noogu jiro oo dee dadka dowladda aynu u dhiibanay xukunku ay u aragto inuu wanaag ku jiro ila iyaga inaga wakiila ilaahay iyaga inooga wakiila iyagaynu mas-uuliyaddaa saarannay waxaynu leenahay ilaahay haydin gargaare waa yuhuudo ilaahay baa inoo sheegay xataa inaan la aamini karin wuxuu ilaahay inoo sheegay yuhuudda iyo gaaladu inaanay weligaa kaa raalli noqonaynin ilaa aad diintooda gasho lan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica millatahum marka waxaan leeyahay dowladdaa aynu xukunka u dhiibanay ayaynu leenahay idinkaa naga wakiileh war meeshaa haddii wanaagi noogu jiro iyadoon diinta laga tallaabsanay iyadoon caqiidada maxay ahayd la dhaawacayn iyadoo islaamnimadii aynu ahayn aan wax la yeelaynin haddii ay faa'iida inoogu jirto alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin faa'iidada inooga soo qaado haddaana inoogu jirinna ee inaga joojiya shareecaddu miyay diidan tahay in calanka tawxiidka la geeyo qudus shareecadu miyay diidan tahay in calanka tawxiid kale la geeyo maya calan haddii calan ama tawxiid ha lahaadee horaan uga jawaabo ama yaanu lahaanin ama qudus ha laga taago ama meel kale ha laga taage mar haddii aanay laa ilaaha ila allah ku dhacaynin meel najaasa oo nijaasi ay taallo laa ilaaha ila allah waxa weeye wax ka hor joogsanaya in qudus laga taago ma jirto baraha bulshada markaad saa u eegto somalilan israa'iil bay xidhiidh la samaysay cadow badan baa siyaabo kala duwan uga falcelinaya somalilan gaalay ku xidhato xaalkeedu waa adag yahay waxbay saa u akhriyayaan way gaaloobeen oo kale waa kelmadaha baraha bulshada aad ku arkayso doctore bal arrintaasi maxay kula muuqataa adiga bismi illaahi araxmaan araxiim waxa weeye dad muslimaynu nahay waxayna xukumaana waa shareecada islaamka ilaahay noo dejiyey ee ku sugan qur'aankiisa kariimka
iyo sunnaha saxiixa ah ee rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa ina xukuma marka shareecadaas waxay inoo sheegaysaa qofkii muslim ahee laa ilaaha ila allah yidhaahda in aanu laa ilaaha ila allah marnaba ka bixin isaga oo ficil ama qowl ama caqiido gaalnimo ah oo uu u badheedhay ku dhaqmo mooye wax ka saari kala gaalnimada maxaa leeyahay islaamnimadaas ma jiraan aan ku celiyo qofka wuxuu uun gaal noqon karaa ama gaal loogu tilmaami karaa iyada oo badheedh ficil ah ama qowl ah ama caqiido uu aaminsan yahay oo gaalnimo ah oo cad uu ku dhaqaaqo waa kow qofkii markaa baraha bulshada waxaa ku jirta dadkii reer somaliland way gaaloobeen oo israa'iil bay raaceen oo qudus bay calankii laa ilaaha ila allah geeyeen intaa midna meel ay ka soo gasho inaynu ku dhawaaqnay qowl gaalnimo ah ama ficil gaalnimo ah waayo calanka halkaa la geeye maaha ficil gaalnimo caddaynaya maaha xidhiidhkaynu la yeelannay ficil gaalnimo caddaynaya maaha dee caqiidadaynu haysanaana waa laa ilaaha ila allah oo meel aynu kaga baxnay ama caqiido kaga duwan aynu ku qaadannay cid sheegaysaa ma jirto haddii qof kale ku idhaahdo gaal baad maxay diintu ka qabta hadday uu qof ku idhaahdo qof kale gaal baa tahay halkay diintu ka taaganta waynu maqlaynaayo waxaa la leeyahay dadkii somaliland way gaaloobeen gaalnimadiina waynagaa sheegnayoo waxaynu idhi qowl ama ficil ama caqiido qofkaas oo gaalnimahu ku dhaqaaqo oo weliba uu u badheedho oo aan shubahaad ku jirin oo aan mawaanic lahayn mawaanic waa maxay waxa weeye qofkii oo lagu khasbo maalan haddii la yidhaha qof inta baastolad madaxa lagaga qabto hadal gaalnimo ah ku dhawaaq ama ficil gaalnimo ah ku dhaqaaq mawaanicday ka mid tahay oo qofkaasu gaal noqon maayo laguma xukumayo inuu gaal yahay marka ciddii doonaysa inay ciddii odhanaysa qof kale waa gaal horta waa inay shareecada iyo axkaamta gaalnimada qofkii la gaalaynayo axkaamtii iyo shuruudihii uu lahaa waa inay u soo maraan qofkii isaga oo aan shuruudahaasu ay iyadoon buuxsamin oo aanay caddaanin oo aanay shubahaadkii ka maran yihiin oo ay mawaanicdii ka maran tahay qofka qof kale gaal ku tilmaama rasuulka alleh sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo sheegay xadiis saxiixa in kii hadduu qof kaleoo muslima yidhaahdo waa gaal weeye laba midun bay noqonaysaa kii ka kale ku tilmaamay inuu gaal noqdo inuu gaal yahay haddii uu qofkaa uu gaalka ku tilmaamay uu gaalnimo ku caddaan weydo inuu isagu gaal noqonayo ayaa rasuulka alle inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam waxyaabaha waaweyn ee uu inooga digay rasuulkuna waxaa ka mid ah dadka in la gaaleeyo takfiirta gaalaynta dadka muslimka ah marka waxaynu isweydiinaynaa qof keliya baa la yidhi qofkii gaal ku tilmaama ee gaalnimadaasu ay dhaboobi weydo kii isaga ku tilmaamay gaal ayaa xaqiiqo gaal noqonaya isagii ku wareegaysa bal waxaad ka warantaa ninka yidhaahda ummad dhan oo salaadaysa oo masaajido badan ku tukanaysa oo soomaysa qofka yidhaahda waa gaalo ee laba keliya gaalo noqon waayaan iska dhaaf intii uu ku tilmaamay gaal oo dhane laba keliya hadday gaal noqon waayaan isaga xukunkiisu muxuu noqonaya kii keliya habaa la yidhi adigaa gaal noqonaya ummad dhanka ku tilmaama ee laba ama saddex keliya ay gaal noqon waayaan maxaad u malaynaysaa xaalkiisu halku tegayo isaga waxaan leeyahay waa qof aada u abaal daran ayuu noqonaya qofka gaal ku tilmaamaya qofka kale waa qof aad u nasiib daran runtiina haddii aan ku dhiirado aan leeyahay waa qof aan ilaahay aqoon wanaagsan u lahayn waa qof aan diinta islaamka aqoon wanaagsan u lahayn waa qof aan ka xishoonaynin islaamnimada
laa ilaaha ila allah qofkaa kala yidhi qof aan ka xishoonayn weeye ayuu noqonaya ama isla weyni ku jirto isla weyn isaga ku jirto isaga ku jirto doctore markii Soomaaliya ictiraafka heshay cadow badan oo meel walba ka qayliyay ayaa jira kuwa Kenya jooga uu ka mid yahay Umulok isagoo aynu ognahay Soomaaliya iyo xerada xalana iyo dhibta ka socota iyo ciidamada kala duwan iyo waxyaalaha meesha ka dhaca iyo gaalada joogta xamar laakiin xiriirka Soomaaliya Israa'iil la sameysay isagoon cilmi diimeed u haynin maalin walba si uu qaldan uga hadlaya doctore waxaad ka mid tahay dadka aqoonyahanka Somaliland isla markaana gaalada in badan la soo shaqeeyay waliba Mareykan iyo Sheekh Umar maxaad ku qancinaysaa horta inagoo waxba magacaabayninba waxaynu leenahay qofka dad muslina yidhi gaal bay yihiin maalin kasta wixii ummadda reer Somaliland faa'iidaha u soo kordha ka dhigaya wax qaldan oo dadka maxay ahayd bac u tuuraya duka waaqle uga dhigaya oo macnihii halkanay mareen halkanay sameeyeen waxa weeye runtii nin aad u nasiib daran weeye ama magacaabi mayna isagiyo wixii la mid ah ee arrimaha ku jira waa dad aad u ayaan daran weeye waxa aynu leenahay waar ummaddan way tashatay dhabe ilaahay ha ku gargaaree ay maxay ahayd nolosheeda ku hagaajisanayso ayay qaaday waxa weeye nimankaasu anigu waxaan leeyahay wax kale maaha waa niman siyaasiyiin ah oo diinta islaamka ku gabanaya kuwii uu quraanku ku sheegay ee ilaahay uu yidhi lacag yar daraahim yaryar bay ku bedelanayaan diintooda inaanay noqonin ay iska ilaaliyaan baan kula talin lahaa nimankaas waayo intaasoo bini aadamahoo diin garanaya cilmi lahoo ayaa jooga adduunyada ama xitaa xamar ha joogaan ama Kenyaba ha joogaan laakiin afar ka mid ah oo siyaasiyiin diinta ku gabanaya oo diinta ku maal gashanaya oo dhiig muslin in la daadiyo 1.8 milyan u ururinaya diintuna isma bedesho diintu xaq bay ku hadashay diintu xaqun bay iyo diintu way toosan tahay laakiin maalinba siba uga hadlaan iyagu maalinba meeshii la jiifiyaana bannaan ayay ka dhigayaan nimanka waxaan leeyahay waar aakhiradiina u tugdha danihiina raacda eeg dadkan ummaddan Somaliland allaala waxay ku samaysay ma jirto run hadda ilaa iyo 46 sannadood aynu calankeena ula tagnay wax kaliya oo la oranayo Somaliland baa ku samaysay dadkaas ma jirto haba yaraate maxay nagu soo maxay ahayd jeediyay waxa weeye xasad iyo diintii oo ay u isticmaalayaan qalad laga xishoodaan leeyahay diinta alla ixtiraamo dadka muslimka gaalayaan lagu sheegin dad muslim la ilaaha illa allah yiri intaasan de oran lahaa tala soo jeedin waxaad soo jeedin lahayd Dr. Cabdulqaadir Khayr Cilmi maadaama aad waqtiyo badan imaam baad ka soo ahayd 30 sano magaalada New York 30 sano Mareykan baad ku noolay 30 sano oo kamida diinta islaamka waxaad ka waday jeelashaas waaweyn ee Mareykanka iyo sida dacwadda Allah u gaarsiin lahayd meel walba shacbiga Somaliland maadaama ay heleen ictiraafkii Somaliland talada kama dhibcaanka ayaad la wadaagaysaa waxa weeye horta waxaynu leenahay اعتراف إلهي خير هي نوقد إنه خير كتير إن كلا الله أعلم إلههم بأوك لكن وحنا له إلهي ورثة هي نور رميو خيرنا إلهي هي نوقد وانقرت ومديننا وحنا له وار دولة با نوردسن دولة داس يدا إنجا مسؤولة أنا دعين إن إلهي كوهجو أن آمن هرت مركه إنه آمنه يجا
aanu ducayno inuu ilaahay ku hagaajiyo xaqa isagu ba xaqa garanaya ilaahun baa wanaaga garanaya ilaahun baa garanaya khayrku meerku ku jiro waxaan leeyahay ummadeenaas aanu ducayno nimankaa halkaa aynu dhiganay in ilaahay khayrka ku hagaajiyo oo yuhuudda aynu sheegnay inay yihiin dad xun oo ilaahay noo tilmaamay ilaahay meydku ka soo saaraa wax xay ah xayigana meydku ka dhigaa sidoo doonuu ilaahay u dhaqmaa yuhuudda ilaahay qurunka wanaag uu inooga soo saari karaa ilaahay ha inooga soo saaro dadkeennana waxaynu leenahay waar dowladdeennaas yaan laynaga horjeedin oo iminka nimankaa ka soo hadlaya muqdisho iyo kenya iyo jabuuti iyo meelaha dee ma garanaysa ujeeddadoodu waxay tahay ummaddaa ka hor joogsada wanaagga u soo socda oo iyaga iyo dowladdooda iska hor keena iyaga kala qaybiya ma garanaysaa ujeeddadoodu tahay saasay dee isleeyihin marka waxaynu leenahay dadkeenna waar garta inaynu dowlad dhigannay meesha dowladdaa aanu ducayno iyagaa la fadhiisanaya dadka iyagaa kontaraaga la gelaya in ilaahay ku hagaajiyo yuhuuddaa qurunka inuu khayr inooga soo saaro ilaahayna waa qaadirun calaa kulli shay amiin waa hagaag aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waraysigaas qiimaha iyo qadarinta badnaa ee uuna siiyey doctor cabdilqaadir khayre cilmi oo ka mida dadka aqoon-yahanka somalilan isla markaana qoray kutub badan oo uu ka qoray xagga diinta islaamka waxaa kaloo uu ka mid ahaa dadkii somalilan ee 30 sannadood aan idhaahdo ka fidinayay diinta islaamka jeelasha waaweyn ee maraykanka 30 sano 34 sano maraykan buu ku noolaa 23 sano masjid weyn oo ku yaala magaalada New York ayuu imaamka ahaa maasha Allah isagoo maanta inooga warramayay faa'iidada ku jirta tiraafka aad baad mahadsan tahay maasha Allah oo kaaga mahadnaqaynaa